الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الورى وعلى خير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله أما بعد وحين ولا ليال كسو قدو تشرني برنامج كاين وقوم قعدرني هبدغنكي نبي صلى الله عليه وسلم قارهان قيبتي كور رميسي نبي إيو قابكي وردق ما يدمر كيسا وحا كم إذا قاببك النوع عاسا نبي صلى الله عليه وسلم هديو أركم ميتكود oo murugaysan oo dhibaata ay la soo daristay inuu qalbi qaboojinayay oo waxa weeyaan uu qalbi dejinayay waxana ku tusinaya xadiis Anas wuxuu leeyahay Safiya bint Huyay oo xaasaskii nabiga kamid ahayd ayaa waxa soo gaadhay Hafsa bint Umar inay waxa weeyaan tiri Safiyi waxa dhalay nin Yahuudi ayaa dhalay oo waa nin Yahuudi uu dhalay dabeetana Safiya markuu warkaasi soo gaadhay aad bay u murugootay way ooyday nabiga sallallahu alayhi wasallam baa u soo galay iyadoo ooyeysa markaas wuxuu ku yiri ma yubkiki maxaa ka oohinaya markaasay warkii u sheegtay oo ay tiri hadalkaas ayaa iga soo gaaray Xafsa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maxay kuugu faanaysaa Xafsi sababtoo ah waxa tahay adigu inan uu nabi dhalay adeerna waxa ku ah nabi waxana ku hoos nooshahay oo ninku ah ama xaasku ah nabi maxay kugu faanaysaa sidee bay ku dhacday waxay ku dhacday nabiga dhalay waa Harun ibn Imran nabiga adeerka u ahina waa walaalkii Musa ibn Imran nabi Muhammad baanay xaas u tahay oo oori u tahay sidaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku qanciyay markii ayay degtay Safiya bint Huyay waxa kamid ah tusaale arrinka u noqonaya xadiidka Safiya oo ay leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa dumarkiisii la baxay oo xajka ayay waxa weeyaan u raaceen si ay u soo gutaan dabeetana markii dariiqa lagu sii jiray jidka lagu sii jiray ayaa waxa dhacday in awrkii ay waxa weeyaan Safiya fuushanayd oo fadhiistay dabeetana waxayna ahay Safiya dadka kuwa ugu gaadiidka fiican bay kamid ahay dabeetana markii awrkii ka fadhiistay bay ooyday nabiga sallallahu alayhi wasallam baa ka war helay wuu u yimi dabeetana ilmadii ka daaysay ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka tiray waana u qalbi qaboojiyay marka waxa loo baahan yahay gabadhaadu markay murugaysan tahay inaad waxa weeyaan qaabka noocaasa iyo qaabab waxa weeyaan qalbi dejineed aad waxa weeyaan kula dhaqanto ayaa loo baahan yahay waxa kamid ah sidoo kale walaalayaal qaababkii nabigu uu la dhaqmayay in iyaga oo ku qaylinaya oo codka kor ugu qaadaya oo waxa weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam hadana uu dul qaadanayay oo arrinka noocaasina aanu dhibay laba tusaale hadaynu ka soo qaadano tusaalaha koobaad Abu Bakr radiyallahu anhu arda ayaa gurigii nabiga yimi markaasuu soo idan dalbaday si uu soo galo markuu waxa weeyaan soo galay ayaa wuxuu maqlay Aisha radiyallahu anha oo codkeeda kor nabiga ugu qaadaysa dabeetana Abu Bakr wuxuu gudagalay inuu Aisha canaananayo oo waxa weeyaan hadalka uu ku adkaynayo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baa intuu soo kacay ayaa wuxuu kala dhex galay Aisha iyo waxa weeyaan Abu Bakr oo aabaheeda ayuu kala dhex istaagay dabeetana arrintii markay iska degtay ayuu Abu Bakr baxay dabeetana intii Abu Bakr uu maqnaa ayaa nabigu Aisha la hadlaya markaas wuxuu ku leeyahay miyaanad arkaynin sidaan adiga iyo ninkii idin kala dhex galay isagoo ku raali gelinaya nabigu sallallahu alayhi wasallam hadalka noocaas Abu Bakr baa mar laba soo noqday markaas wuxuu u soo galay nabiga oo Aisha ka qoslinaya dabeetana waxa weeyaan Abu Bakr hadan kaftarabu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri oo wuxuu ku yiri nabi Muhammadow sidaad iiga qayb galiseen dagaalkiiniiba farxadiinna iyo nabadgelyadiinna iiga qayb galiyay tusaalaha labaad Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda ayaa waxa dhacday inuu tilmaamayo waxa weeyaan qaabkii markii ay Maka joogeen dumarka ay ula dhaqmi jireen markaas wuxuu leeyahay markii aanu Maka joognay ama ragayagii Quraysheed dumarku hadan lagu may soo celin jirin markii magaalada Madiina aanu nibi ayaa waxaanu aragnay walaalahayaga ansaareed oo dumarkoodii ay ka qaalib noqdeen oo waxa weeyaan hadalkii ay ku celinayaan markaas dumarkayagiina waxay qaateen adabka noocaas ama akhlaaqda noocaas dabeetana waxay sameeyeen hadalkii bay nagu soo celinayeen gabadh marka dumarkiisii kamida ayaa maalmaha kamida hadalkii Umar ku soo celisay
markaasuu Cumar inkiray oo arrinkii ku inkiray markaas waxay tiri ma waxaad karaahiyeysanaysaa inaan hadalka kugu soo celiyay ilaah baan ku dhaartay nabi maxamed xaasaskiisa ayaa hadalka ku soo celiya oo midkood hadalka ay ku celisaa maalinkii ilaa habeenkiina ay ka haajirtaa Cumar dabatana warka markuu maqlay xabsu u tagay markaas wuxuu ku yiri sidaas miyay dhacdaa oo midkiin hadalka nabiga miyay ku celisaa maalinkii ilaa habeenkiina miyay ka haajirtaa markaas waxay tiri xabsiha marka waxa loo baahan yahay gabadhaadu haday kugu kululaato hadalka kugu kululeyso kor kugu qaado inaad u dul qaadato oo waxa weeyaan arrinkaasi aanu ku dhibin waxa kamid ah walaalayaal qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa iyo ooriyihiisa uu la dhaqmayay in waxa weeyaan mararka qaar kood ka caawinayay waxa weeyaan sidii gaadiidka ay u kori lahaayeen waxana ku tusinaya xadiis Anas wuxuu leeyahay waxaan arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo maalmaha kamida Safiya xaaskiisa Safiya oo doonaysa inay gaadiid korto ama ratigeeda ay korto waxa weeyaan ka caawinaya sidee buu uga caawiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ugtiisa sida u dhigay dhulka ayaa Safiyana waxay ku dul istaagtay ruuga nabiga dabatana sidii bay waxa weeyaan ku kortay ratiga ay ku kortay waxa loo baahan yahay marka xaaskaagu markay gaariga korayso hada waxa weeyaan awr iyo dameero iyo fardamo jiraan markay xaaskaagu gaariga korayso inaad daaqada ka furto inaad u sahasho sidii waxa weeyaan ay u kori lahayd alaabta inaad ka fududeyso oo gaariga aad u saartid waxyaabaha soo dhan baa loo baahan waxa kamid ah sidoo kale walaalayaal qaababkii nabiga sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa uu la dhaqmayay inaanu dilaynin oo aanu garaacaynin sida xadiidku uu tilmaamayo ma darabat yadu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam imra'atan qad nabiga qacantiisu waligeed may garaacin gabar may garaacin oo waxa weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa uma qacan qaadi jirin bal waxa weeyaan waynagii soo marnay inuu waxa weeyaan u diidayay waxa weeyaan in la garaaco dumarka oo ragga u diidayay oo uu lahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam laysu bi khiyarikum kuwa noocaas ee dumarka u qacan qaadaya khiyaartiina iyo hal doorkiina ma aha buu rasuulku tilmaamay waxa kamid ah qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarkiisa iyo xaasaskiisa uu la dhaqmayay inuu kaftankooda iyo hadallada waxa weeyaan ka soo baxay ee kaftanka ah ee fukahada ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dhageysanayay waxana tusaale kuugu ah Aisha radiyallahu anha wa ardaaha ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid la hadashay markaas waxay tiri rasuulka Allah waxaad ka warantaa hadii aad ku soo degto meel waadiyo toga waadiga waxa ku yaala dhir baa ku taala dhirtaasi labay u qaybsantaa dhir wax laga daaqay oo hore loo daaqay iyo dhiran wali la daaqin keebaad awrkaaga ama neefkaaga xoolaha ah aad daajin lahayd nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhirta aan la daaqin ayaan daajin lahaa la soco Aisha waxa weeyaan sir bay ka leedahay hadalka oo ujeeday ka leedahay ujeedaday ka leedahay waxa weeyaan nabiga xaasaskiisa oo dhani armal bay ahaayeen ama guur hore soo mareen oo rag hore ayaa soo guursaday ama ha furaan ama ha ka dhintaan waxaan Aisha ka ahayn Aisha nabigu bikro iyadoo ah buu guursaday ama inan ah waxa sidoo kale qodobka tusaale kuugu noqonaya xadiidka Aisha nabiga sallallahu alayhi wasallam baa janaase ka yimi oo may soo aasay markaasuu guriga yimi markaas wuxuu yiri guriga markuu yimi ayaa wuxuu u yimi Aisha oo leh wa ra'sa alla madaxay xanuunaya markaas nabigu wuxuu yiri bal ana wa ra'sa alla ilaaha aniga ayuu madaxii xanuunaya markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam uu gurigii fadhiistay markaas wuxuu yiri Aisha miyay ku dhibaysaa hadii hortay aad dhimato oo waxa weeyaan aan ku maydho oo ku kanfo oo kugu tukado oo aan ku aaso arrinka noocaas ka waran markaas Aisha hadalkii ayay waxa weeyaan qaab kale u qaadatay ama ay qaab kaftan u dhigtay markaas waxay tiri waxa doonaysaa rasuulkii Allah inaad gurigeyga ku soo xarayso oo aad ku aroosato dumarkaaga kale ma sidaas aad doonaysaa tawakkal nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qoslay inta ka bacdi nabiga waxa ku bilaabmay xanuunkii uu geeriyoon lahaa ee uu dhiman lahaa waxa kamid ah sidoo kale walaalayaal qaababkii nabiga xaasaskiisa uu la dhaqmayay in marka ay kaftamayaan aanu nabigu maagaynin ama aanu cayrinaynin ama aanu karaahiyeysanaynin bal uu kala baxayo uu daawanayay arrinkaana mabsuud uu ku ahaayo uu ku qoslayay waxana kuugu daliilay xadiis Aisha waxay leedahay aniga nabiga wada joogna ayaa waxa noo timi Sauda ayaa noo timi dabeetana waxa weeyaan cunto ayaan u sameeyay nabiguna sallallahu alayhi wasallam dhaxdayada ayuu soo fariisnay lugna aniga ayuu isaaray
lugna wuxuu saaray sawda ayuu saaray dabeetana cuntadii markii la keenay ayaa caaisha waxay tidhi sawday cuntada cun markaasay sawdi diiday cuntadii markaasaa caaisha waxay tidhi ilaah baan ku dhaartee ama cuntada waad cuni ama wejigaan kaaga dhabooqaya wejigaan kaa saaraya markaasaa waxay tidhi cuni maayo way diiday caaisha intay xeedhadii gelisay qacantoo cunto ka soo qaaday ayaa waxa weeyaan ay wejiga ay ka saartay dabeetana nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu qoslay muu canaanan manuu maagin dabeetana sawda ayaa nebiga eegtay markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi adiguna ka jaro oo sidaa si lamida ku samee sawdana way qaaday caaisha ayay wejiga waxa weeyaan kaga dhufatay dabeetana nebigu sala allahu calayhi wasalam mar labaad ayuu haddana qoslay iyadoo xaaladdu sidaa ay tahay ayaa waxa dhacday waxa yimi cumar ibn alkhadaab oo yeedhayo dhawaaqaya oo leh yaa cabdallaahi ibnu cumar laba goor ku celinaya markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam codkiisa markuu maqlay ayaa wuxuu yidhi waa cumar waxaanan u malaynayaa inuu soo gelayo guriga ee waxa weeyaan kaca oo wejiyadiinna soo maydha waxay ku tusinaysaa markaa nebigu dumarkiisu markay kaftamayaan inaanu waxa weeyaan dhibsanaynin ama aanu kahanaynin waxaa ka mida sidoo kale tusaalayaasha xaaskiisa zaynab oo waxa weeyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam madaxiisa baadhaysa oo xayawaanno iyo waxyaabal noocaasa ka baadhaysa oo dumar kalena waxa weeyaan ay meesha joogaan ayaa hadalkii ayaa waxa weeyaan iyo sheekadiiba isfurfurtay dabeetana dumarku waxay ka cabanayeen in marka waxa weeyaan raggoodu ay dhintaan guryihii ay deganaayeen laga saarayo oo arrinkaa lagu cidhiidhinayo ayaa waxa weeyaan ay ka cabanayeen dabeetana zaynab ayaa intay isilowday ayaa waxa weeyaan waxay eegtay dumarkiibay eegtay oo sheekadiibay ku darsatay nebiga madaxiisiibay faraa ka qaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu zaynab la hadlay ayaa wuxuu ku yidhi indhaha ka hadli maysi zaynabeye hawshaadana wado waxa weeyaan hadalka kalena wad oo labada arrinba isku wad bimacnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dumarkiisa inuu la kaftamayey ayay ku tusinaysaa waxaa ka mid a sidoo kale walaalayaal qaababkii nebigu sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisii ooyihiisa uu la dhaqmayey inuu u oggolaanayey lahwiga kiisa mubaaxa ah iyo ciyaarta teeda bannaan inay waxa weeyaan daawadaan ama ay ciyaaraan waxaana daliilkuugu ah xadiidu caaisha waxay leedahay maalin maalmaha ka mid ah annaga iyo rasuulkaoo fadhina ayaan waxaanu maqalnay cod iyo sawaxan dabeetana nebiga sala allahu calayhi wasalam baa istaagay markaasuu eegay markaasaa wuxuu arkay raggii xabashida ahaa oo masaajidka nebiga gudihiisa waxa weeyaan ku ciyaaraya eebooyinkooda iyo waramadooda bimacnaa jihaadka u tababaranaya markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ii yeedho igu yidhi caaishay kaalay oo eeg oo daawo markaasaan imi dabeetana nebiga sala allahu calayhi wasalam baan daba istaagay halkaa garabkiisa ayaan garhka ku qabtay dabeetana halkaasaan ka daawanayay muddo markaannu taagnayn ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay caaishay ma ka dharagtay markaasaa waxay leedahay maya caaishay ma ka dharagtay markaasaa waxay leedahay maya riwaayo kale waxay tilmaamaysaa xasbuk ama intaasi ma kugu filan tahay markaasaa waxay leedahay maya rasuulkii allow ha degdegin dhowr goor buu nebigu wuxuu leeyahay xasbuki ma kugu filan yahay intaas waxay leedahay rasuulkii allow ha degdegin dabeetana waxay leedahay caaisha jacayl iima haynin inaan daawado laakiinse waxaan doonayey dumarka kale inay ogaadaan mansilada iyo booska nebiga waxa weeyaan aan ka taaganahay iyo intaasoo dhan inuu ii sabri karo ii dulqaadan karo markaasaa waxay ku soo gebagabaysay nebigu waxa weeyaan sidii buu iigu taagnaa ilaa anigu aan waxa weeyaan meeshii aan ka dhaqaaqay oo waxa weeyaan eegmadii aan eegay nimanka noocaasa aan joojiyey sidoo kale waxaa ku tusinaya walaalayaal qodobka xadiidu caaisha oo caaisha waxay leedahay maalin maalmaha ka mid a anoo guriga jooga oo maalin ciid ay tahay oo laba hablood oo yaryari ay waxa weeyaan ii heesayaan oo ay buraanburayaan oo ay tirinayaan ashcaar iyo gabayo ama tixo waxa weeyaan maalin aws iyo khasraj ay dagaalameen la tiriyey ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam soo galay dabeetana uu iska jiifsaday xaggaas uu sii jeestay waxaa soo galay dabeetana cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu ardaa markaasaa wuxuu yidhi mizmaaru shayطaan fii beyti rasuuliillah ma cod shaydaan baa guriga rasuulka alle ka baxaya markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi cumarow daa dabeetana markii cumar sii jeestay ayaan labadii hablood waxa weeyaan saaray
ama guriga ay ka baxeen ayaa ay Caaisha tilmaamaysaa marka wuxuu ku tusinayaa qodobkaasi sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa uu ugu ogolaa ciyaarta teeda bannaan ama lahwiga waxa weeyaan qaybtiisa bannaan gaar ahaan munaasabadaha farxadaha iyo maalmaha ciidaha inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu u deynayay waxa sidoo kale walaalayaal qodobka tusaale u ah xadiisu Caaisha oo Caaisha waxay leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa qaswatu Tabuk ka soo laabtay oo ka soo noqday markaas gurigii markuu yimi alaab halkan igu dadan ayaa dabayshii ku soo dhacday markaas dabayshii baa ka qaaday maradii qayb kamid ah markaas nabiga arkay markaas wuxuu yiri waa maxay waxan markaas waxay tiri waa hablahaygii oo ay uga jeedo waxa weeyaan Caaisha tabcan daadeedu ma weynayn waxyaabo yar yar qalab yar yar oo ay ku ciyaaraysay oo ay hablo u eekaysiisay ayaa waxa weeyaan meesha ugu dadnaa waa hablahaygii bay tiri dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay wax kale markaas wuxuu yiri waxaasina waa maxay markaas waxay tiri waa faras laba garab leh markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri oo ma faras laba garab leh baa jira markaas waxay tiri Caaisha oo rasuulkii Allah miyaanad maqal nabi Sulaymaan in waxa weeyaan uu lahaa fardo waxa weeyaan garbale inuu lahaa dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuu qoslay ila dhoolihiisu ama ilkihiisu ay muuqdeen waxa sidoo kale kamida walaalayaal qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu la dhaqmayay xaasaskiisa iyo ooriyihiisa hadii safar uu baxayo inuu ka xaysanayay oo waxa weeyaan aanu iska reebaynin bal way tiro badnaayeen waxa uu ku kala saarayay waxa ay ahayd waa u qori tuuray dabeetana maalmaha kamida nabiga doonay sida xadiis Caaisha uu tilmaamay inuu safar u baxo waa u qori tuuray qori tuurkii baa wuxuu u soo baxay Caaisha iyo waxa weeyaan Xafsa sidii bay nabiga ku raaceen oo ay kula safreen marka ay jidka ku sii jiraan gaar ahaan habeenkii waxa weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam Caaisha ayuu waxa weeyaan uu la socon jiray oo u sheekayn jiray dabeetana Xafsa ayaa kaarta keentay Caaisha u tagto waxay ku tiri Caaisha ma sameynaa waxa weeyaan gaadiidka aynu saaranahay ma kala bedelanaa oo kala bedelasho ma sameynaa adiguna gaadiidkayga raac oo fuul annakaaga aan fuulo dabeetana Caaisha waa ku waafaqday dabeetana waxa dhacday sidii markii la sameeyay ee habeenkii ay noqotay nabigu sallallahu alayhi wasallam awrkii Caaisha uu ku ogaa ayuu xaqiisa aaday waxaba kaga soo baxday Xafsa nabigu kama tagine Xafsul la socday oo u sheekeeyay oo waxa weeyaan ay degeen Caaisha markaa weeyday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasay tabtay oo waxa weeyaan masayrkii uu qaaday markaasay waxay timi Caaisha iyadoo geedka idkhirka la yiraaho agteeda hoos galgalinaysa oo leh ilaahay waxaad igu salidaa dib qalooc ama abeeso igu salid waa rasuulkii alle oo waxa weeyaan aanan waxaan ku sameeyo aanan garanaynin ama waxaan ku idhaaho aanan garanaynin inta waxa walaalayaal inoogu eeg qodobkii koobaad ee barnaamijkeena oo ahaa nabigu qaababkii uu la dhaqmeeyay xaasaskiisa iyo ooriyihiisa xalqadaha dambana waxaynu kaga warramaynaa insha Allah ta'ala qodobadii inoo harsanaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته